Assalaamu calaykum. Soomaaliya waxaa ka jirta shaqo la'aan baasan taasoo saamaysay dhalinyartii heer kasta oo ay yihiin. Ka dhalinyaro ahaan waxa ugu wanaagsan aad ka shaqaysan karto waa shay aad adigu ka tahay kan ugu sareeya wax aad doontana aad ka samaysan karto. Aan u soo gudbo dulucda hadalkayga. Maadaama ay jirto shaqo la'aan baasan, waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaynaa inaan diyaar u lanahay inaan fahansiino sida looga shaqaysto suuqyada online-ka ah iyaga oo ku bilaabi kara lacago sida $100 iyo wixii la mid ah. Waxaan qaadan doonaa dufcadii koowaad oo online xiisada live ah taasoo kuu suuragelinaysa inaad fahanto aadna weydiiso macalinka wax kasta oo kaa dhex buuxaya. Koorsada qiimaha aan ugu talagalnay waa wax uu awoodi karo qof kasta oo dhalinyaro ah, bixinteeduna waa hal mar oo kaliya, waxaadna helaysaa lifetime access. Koorsada waxaad ku baran doontaa waa maxay ganacsiga online-ka ah, sida aad alaab u dalban karto, sida aad u yareyn karto qarashka alaabta aad rabto, sida aad u kala qaybin karto lacagta yar ee aad haysato, sida aad u keeni karto alaabaha Soomaaliya, sida aad u suuq geyn karto, sida aad qorshe iibin aad ugu samayn karto, sida aad Facebook page u samaysan karto, sida aad alaabaha u qurxin karto iyo waxyaabo badan. Ugu dambeyn, waxaan kula abuuri doonaa kambanigaaga oo aan talo iyo waxqabadba aan ka geysan doono insha Ar-Rahmaan. Koorsada waxaad dhammayn doontaa adiga oo leh kambani Soomaaliyeed, alaabna keensan kara, $100 iyo ka yarna maamuli kara, lacag badanna u bedeli kara insha Ar-Rahmaan. Meel kasta oo aad Soomaaliya ka joogto, koorsadan waad ka qayb qaadan kartaa. Koorsada maaha wax la duubay ee waa xiisado online live ah oo aad macalin kala practice gareyn doonto insha Allah. Waxaan kuu ballan qaadaynaa koorsadan inay noqon doonto wixii ugu wanaagsanaa ee aad go'aansato inaad bilowdo idinka rabbi. Diiwaangelinta ardayda cusub waa ay socotaa, ardayda aan qaadan doonana waa 30 arday oo kaliya. Wixii faahfaahina nagala soo xiriir nambarka 613 89 53 59. Aba Academy waa abaartiraha bulshooyinka